Gudoomiyaha degmada Arabsiyo Xamse Xuseen Jaamaca ayaa sheegay in shabeelkii dhowaan deegaanka Kidiga ee degmada Arabsiyo hoos yimaada carruurta ku cunay uu dib u soo labakacleeyay isla markaasina lagu arkay baa uu yidhi deegaano kale oo hoos yimaada degmada Arabsiyo iyo sidoo kale gobolka Gabiley waxaana uu sidoo kale gudoomiyuhu uu sheegay in xitaa shabeelka lagu arkay degmada Arabsiyo isla markaasina ay duubtay buu yidhi shirkad biyaha soo saartay CC camera ku xidhnayd gudoomiyaha oo baaq u diraya shacab weynaha ku dhaqan degmada Arabsiyo iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa hawlgalkii baalkii xayawaankii shabeelkii soo galay degmada oo isaguna khatar badan lahaa iyo cabsi badan oo ay ciidanka nabadgelyada degmadu ay ka howlgaleen aanay runtii goobihii uu ku jiray oo dhan ay mareen weli haddaana laguma guuleysan waa lagu guda jiraa iyadoo ilaa iyo hadda intan u dambaysa aan wax dhiba laga soo sheegaynin iyadoo weliba la arkayo bahalkii hadba deegaanka lagu arko way soo sheegaan wayna soo wargeliyaan wax dhiboo uu cid u geystaana weli ma jirto waana rajaynaynaa inaanu dhibna cid u geysan isagana aan dhaawac loo geysan balka war gudoomiye degmooyinkaasi ama tuulooyinkaasi lagu arkay shabeelka bal xaaladoodu hadda say tahay markay ay dadku idin la soo hadlaysan maxaad dadka ugu baaqdeen ku dhiirigelisay horta tuulooyinka hadda lagu arkay ilaa iminka sheegaya ama warbixinta noo soo gudbiya waa badan yihiin wuxuun baan u aragnaa bahalkii inuu wadanka joogo oo wadanka dib ugu soo noqday ma waxaynu odhan karnaa ugaadhi baa dalka kusoo noqotay waxaynu odhan karnaa dhowr midh baa socsocda maxabad baa kolba meel maraysa ma garan karno laakiin wasaaradda deegaanka na waa wargelinay ka degmo ahaana howlgal baanu ka samaynay meelihii dee wax khatar looga baqayana waanu tagnay goobo waxaa jiray tuulooyin looga baqayay laago uu ku jiro oo la mari waayey laagihii ciidanka nabadgelyadu iyagoo hubkooda sitay tageen waanay galeen annaguna waanu la soconay laag baa loo eegay waa laga baadhay waana laga waayey aad bay ugu niyad samaadeen ciidanku deegaanku odayaashii deegaankuna way la socdeen waanay garab taagnaayeen ciidanka goobihii ciidanku mareen oo dhanna way garab socdeen waanay arkayeen runtiina way ku niyad samaadeen laagihiina waa la marayaa waana lagu niyadsan yahay laakiin wuxuun baa jirta inaan bahalkaa faraha dee waxa weeye halkiisa loogu tegin muxuu ahaayey dadka dhalinyartii ku cunay mise deegaano kale u gudbaya deegaano kale u gudbayaa oo isla Arabsiya ah intaanu ilaa hadda ognahay waa deegaanada looga soo sheegayaa way badan yihiin Arabsiyo duleedkeedan lafteedu yimido warshada biyaha ee xays la ilaahay Arabsiyo laga soo saaro waxa ku xiran web kamarad baa ku xiran kamaradaasa lagu arkay oo sawirtay habeen isagoo xilli dambe intuu meesha biyo ka cabay ka baxaya marka taasina waxa weeye waa mid cadeynaysa inaanu weli dhagar ugu talagelin iyo inuu cid dilo inta uu waxa weeye dee duurjoogtu aanay khatar lahayn waxba loo geysan maayo inta se bahalku dee khatar yahay waxa weeye uu dadka laynayo dee toos baa loo raadin oo looga howlgeli waana la toogani waxaan ugu baaqaynaa bahalka shabeelku khatar buu leeyahay waxa weeye sida harimacadkoo kale ma aha inaan la doonan oon halkiisa loogu tegin haddii lala kulmana aan wadadiisa loo baydhin ee laga baydho sida inta badan dadku ay soo tabinayaan deegaanada tuulooyin ka soo hadlayaan marka waxa muhiim ah in sida ummaddu kaga badbaaday dadkuna kaga badbaadaan maadaama aan ciidankeenu tuulo walba joogin ciidanka degmadu joogaa mar alaaliya marka wixii la arko dee howlgalayaa halkan ka dhaqaaqaya gaadha la kaxaysanaya goobta la tagaya inta deegaankii la ishelayo deegaanada locationskoodu sida loo helaa way adag tahay inta la ishelayo halkan la leeyahay ayaan la isku soo gaaraynin marka baalka khatartiisa inta waxa weeye dawladdu go'aan ka soo saarayso waxa weeye dhinac looga tashanayo waxaan ku wacyigelinayaa shacabka reer Arabsiyo tuulooyinka dhammaan meel kastoo joogaan in aan bahalka halka lagu sheego aan loogu tagin ee laga baydho isaguna haddii uu khatar badan keenayo oo waxa weeye uu weerar ku jiro in hore sida ugu dhaqsaha badan loogu soo wargeliyo
oo ciidanka nabadgelyada halka joogan lagu wargeliyo annagana la soo wargeliyo insha Allah si aan ugu hawlgalno hadii alla yiraahdo shabeelkani lagu arkay deegaamada hoos yimaada degmada Arabsiyo ee gobolka Gabiley ayaa horay 3 qof u cunay walow aana uu dilin balse uu dhaawacay haatana 3 qof ay caafimaad qabaan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geyga Somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarino cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab microwave TV-yo iyo moobilo dhammaan shirkadda Samsung ah account lacag ku jirto oo banka dahabshiil ah dalxiis aad ku degto hoteelada Damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidhmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qaybgal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111